Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina meel kastoo aad caalamka aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon ee wararka telefishinka SDN weydin hayana waxaa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa magacaabay guddi baaritaan ku sameeya weerarkii lagu laayay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ka dhacay qaybo kamid ah dowlad goboleedka Galmudug. taliska ciidanka xoogga dalka ayaa dhankooda waxa ay weerarkii lagu laayay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ay dusha ay uga tuureen mas'uuliyadeeda inay leeyihiin ururka Al-Shabaab. midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sharciyeenta doorashada dowlad goboleedyada dalka ee beesha caalamka waxay ku tilmaameen mid madaxweyne Farmaajo u horseeday inuu ku xadgudbo doorashada guud ee dalka. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday xero ay degan yihiin ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya. gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kala hadlay siideynta maxaabiis ku xiran xabsiyo ku yaala magaalada Garowe kuwaas oo deegaan ahaan ka soo jeeda Galmudug. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in khubaro qaabilsanaa dhinaca qaraxyada ay ku dileen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. akhbaaraadka caalamka aad warkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dowladda Australia oo dad ay ka talaashay COVID-19 oo laga helay xanuunka HIV/AIDS. intaas waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada ugu door xulan ee wararka SDN TV wadin hayo goordhow diyaar garoow qodobada ay kuwa kale oo faahfaahsan oo aan idin baqaan waxaan idin warami doonaa aniga Maxamed Axmed.